magaalada Garowe ee Puntland waxaa maanta xukun dil ah lagu riday shakhsiyaad loo heestay kiiskii Allah u naxariistay Caaisha Ilyas Aadan oo lagu kufsaday kadibna lagu dilay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan qaybta ay maamusho Puntland. maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa maanta markii saddexaad u fariisatay dhageysiga galdacwadeedkii la xiriiray kiiskii Caaisha Ilyas Aadan ee isugu jiray dilka iyo kufsiga arxan darrada ahaa. maxkamadda ayaa xukun dil toogasho ah waxa ay ku riday saddexdaas ruux oo laba ka mid ah ay walaal yihiin waxaana lagu helay sida maxkamaddu ay sheegtay cadeymo la xiriira kufsiga iyo dilka inay ka dambeeyeen. horey ayaa sidan oo kale saddexdan ruux waxaa loogu xukumay dil hase yeeshee kiiska ayaa loo soo gudbiyey maxkamadda sare iyadoo oo ay racfaan hore u qaateen laakiin maxkamaddu maanta go-aankii ugu dambeeyay ay qaadatay. maxkamaddu markay dhageysatay Cabdishakuur Maxamed Dige in maxkamadda horteeda uu ka doortay inuu diyaarinayo qabrigii marxuumad Caaisha Ilyas Aadan lagu aaslaha xukunka maxkamadda sidaa darteed maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota. maxkamaddu waxay diiday cabashada ay soo qaateen Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame oo qareenooy u kala yihiin Xabiib Cabdullaahi Ciise iyo qareen Mustafa Maxamed Jaamac iyo Cabdishakuur Maxamed Dige oo qareen u yahay Cabdirasaaq Maxamed Faarax. maxkamaddu waxay ayiday xukunka tirsigiisu yahay Mahraga na 115/2019 kana soona baxay 3 bishii 6/2019. maxkamaddu waxay cusubtay sharciyada islaamka iyo qodobada qaanuunka suuratu Maa'ida aayad 33 suuratu Baqara 177 kitaabka nidaam al-qadaa 185 qodobada qaanuunka. waxaa ahayd maxkamadda maamulka waa maxkamadda sare ee Puntland oo iyadu ku dhawaaqaysay xukunkaas dilka ah ee lagu riday saddexdaas shakhsi ee loo haysto inay ka dambeeyeen dilkii iyo kufsigii Caaisha Ilyas